maanta waxaan ka hadli doonaa fikrad iyo filin. Fikraddu maxay tahay, fulintuna maxay tahay? Fikraddu waa shay maskaxdaada ku soo dhaca, wuxuu noqon karaa fikrad ganacsi, fikrad bulsho ama fikrad cilmi. Fulintuna waa habka aad ku rumayn lahayd ama ku hirgelin lahayd fikradaada. miyaad ogtahay fikrad kasta oo maskaxdaada ku soo dhacda inay dhowr qof oo kalena ku soo dhacdo siiba fikradaha ganacsiga. taasi waxay keentaa in mararka qaar aad aragtid fikradaadii oo la fuliyay oo isweydiisid talo maxaa u sheegay. haddaba waxaa la isku dhaafay fikrad oo kaliya maaha, waa fulin. fulintuna waxaan idinka siinayaa 3 qodob oo haddii aad raacdid باذن الله تعالى ku fududeynaya inaad fikradaada fulisid. marka koowaad fikradaada qor. fikradaadan intay maskaxdaada ku jirto ma rumoobayso. waxa fiican inaad qalin iyo waraaq soo qaadid, intaad dejisid aad qoraal ka dhigtid. marka labaad fikradaada wadaag. siiba haday tahay fikrad ganacsi, ganacsigu ama fikradda ganacsigu waa waxa doonaysid inaad iib geysid ama inaad dadka ka dhaadhicisid. mararka qaar hadaad fikradda isku koobtid waxa laga yaabaa meelo badan aan adigu ka arkin inuu qof kale wax kugu kordhin kara. sida darteedii waxaa fiican inaad fikradaada wadaagtid. mar saddexaadkii waa inaad joogteysid fikradaada. sideeba marka fikradda loo joogteeyaa? fikradda ganacsiga markaad fulinteedii ku jirtid had iyo jeer waxaa kaa hor imanaya caqabado fara badan. marka waxaa la joogteenayaa waa samirka iyo dadaalka. haddaan anigu ka hadlo fikradeydii iyo fulinteedii, in badan waxaan isweydiiyey maxaan u yeelan weynay goob online ah oo laga heli karo xogta ay u baahan tahay hooyadu markay xaamilo tahay ama markay ilmaheedii barbaarinayso. taasi waxay keentay inaan aasaaso hooyanimo. hooyanimo oo ah goob online ah oo laga helo talo iyo tusaale, maqaalo maqal iyo muuqaal ah oo ku saabsan hayaanka hooyanimo. hooyanimona waxay leedahay qayb kale oo ganacsi ah. waxaanu keenay alaab oo aan u bixinay hooyanimo box ama sanduuqa hooyanimadu. hooyanimo box waa maxay? waa sanduuq uu ku jirto 22 shay. 22 shay waa alaabta ay u baahan tahay hooyadu marka ay umusho iyo ilmaheeduba. alaabtaas waxay anfacaysaa ilmaha ilaa sanad ama 2 sano. waxaan isku daynay alaabta inaan ka dhigno alaab tayo leh ama alaab sumad caalami ah leh si aan kor u kicino tayadeedii. alaabtan had iyo jeer waxa ku dhacda hooyada markay uurka leedahay, siiba markay ku jirto bilaha ugu dambeeya, waxa ku adkaata inay suuqa tagto oo alaabta meel kala duwan inay ka keento. alaabtii oo dhan waxaan isugu keenay meel kaliya oo boxkaasi ah. mararka qaar xitaa waxa ku adkaata hooyadu inay suuqa u baxdo. waxaanu sameynay wax la yiraahdo free delivery. alaabtaas halka ay hooyadu joogto ayaan ugu geynaa, waliba anagoo aan wax lacaga saaraynin. kaas wuxuu ahaa hooyanimo box. waxaan ku leeyahay markaad adigu haysid fikrad, siiba haday tahay fikrad ganacsi, waxa fiican fikradaada inaad markiiba toos bilowdid fulinteeda. fikradaydan hooyanimo in badan baan maskaxda ku hayay, laakiin markaan bilaabay fulinteeda aan midhaheedii arkay, alxamdulillah maanta waxaana la socdaa 2,000 oo qof oo daafaha adduunka ku kala jooga, rag iyo dumarba. dadkaasi waxay naga helaan fariimo joogto ah oo ku saabsan sidaan hore u sheegay hayaanka hooyanimo. fariimahaas haddaba yaa diyaariya? waxaa diyaariya dad ku takhasusay barbaarinta caruurta ama caafimaadka. waxaan kale marmarka qaar ka soo xignaa website ama barnaamijyo caalami ah oo la hubo. haddii aad jeceshahay inaad nala socotid waxaad naga heli kartaa website-ka halkan ka muuqan doona. ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay haddii aad maanta fikrad maskaxdaada ku jirto, fikradaada yay baabi'in, fikradaada fuli.